gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad oo howlo shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in dastuurka Soomaaliya uusan haba yaraatee gacanta ugu jirin xukuumadda iyo baarlamaanka toona ee hay'adaha shisheeye ay maamulayaan. waxa uu sheegay aragtiyada la xiriira in dastuurka qaabka loo qabyatirayo oo shacabka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ay dhiibteen ay hay'adaha qaramada midoobay aysan soo gudbin qaabkii loo baahnaa. waxana uu sheegay in dastuurku yahay mid ay hay'aduhu maamulayaan. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad waxa uu farta ku gaday oo uu dhaliilay shirka la filayo in uu ka dhaco dhamaadka bishan magaalada Baydhabo oo ay isugu imaanayaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha kaas oo laga hadlayo kheyraadka Soomaaliya iyo dastuurka Soomaaliya. waxa uu sheegay in shirkaasi uusan ahayn mid masiirkiisu ku filan yahay in go'aano saas oo kale lagu gaaro magaalo kamid ah Soomaaliya oo ay sida uu sheegay imaadaan ama ay isugu yimaadaan 4 qof oo kala matalaya Soomaaliya oo dhan. haddaba waxaan ku duwaya markan hadalka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad. waxaa la wareystay 10,000 oo qof oo Soomaali ah oo gudaha jooga oo dibadda jooga, qaar si toos loo wareystay, qaar si dadban loo wareystay, qaar through the media lagu soo wareystay, qaar text message lagu soo wareystay, 10,000 oo qof oo araadooda la soo aruuriyay. ra'yigoodii iyo wixii laga soo aruuriyay ma hayno hay'ad baa qaadatay ma garad oo haysata annaga baarlamaan ma naloo ogola, xukuumad looma ogola, wax allaale iyo waxa weeye kharashka ku baxay milyoonaad dollar oo ay EU ka mid tahay ayaa ku baxday kharashkaas cid loo sameeyay ma naqaan. kharashkaasna hadda annaga nala siiyo nalagu bixiyay waxa weeye yani wax badan oo caawimaad ah oo farsamo ah ayaan beesha caalamka uga baahannahay. taas waa qiraynaa, laakiin si caqabado tiro badan oo dimuqraadiyadda iyo la tashiga shacabka iyo waxa weeye yani xorriyadda Soomaaliyeed caqabad ku ah ayaa beesha caalamka la socda. waa dawo iyo sun wada jira weeye, kamana maarantid dhaqaalahoodii iyo inay garab ku siiyaan iyo inay farsamo ku siiyaan, laakiinse si fudud ayaa waxa weeye ka tashigii masiirkaaga meesha looga saaraya. tusaale yar baan rabaa inaan idin siiyo. dowlad goboleedyaha la dhisayo waxa weeye waxaan tusaale ka soo qaadanayaa meel walba kale waa ka dhacday South West. waxaa la yiri oo dadkii reer South West iyo maaragtay dadkii federaalka ka matalayay iyo kulli waxaa la yiri waxaan rabnaa inaan baarlamaan dhisano, inaan dastuur samaysano oo erga ansixiso, kadibna inaan baarlamaan dhisano, kadibna baarlamaankaasi inuu madaxweyne doorto, madaxweynahaasna uu xukuumad soo dhiso oo baarlamaanku ansixiyo. ayaa dadkii reer South West go'aansadeen. qoladii beesha caalamku waxay tiri ma idin sugi karno, Christmaskii baa soo dhow ma garad ma idin sugi karnaa leeyahay. anagu safar baan aadaynaa, marka arrinkii waxaa la sameeyay 2 usbuuc baa dad inta meel lagu soo aruuriyay leeyahay macal madaxweynihii doorta because anagu waa baxaynaa si aan xafladii shacabkii aan uga qayb galno, madaxweynaha xafladiisa aan uga qayb galno. ilaa hadda dastuurkii South West si uu yahay waa la garan la'yahay. mandate-ka hadda hadduu dhamaado dastuurkii kuma qorna cid allaale cid dooranaysa lama yaqaan. ilaa waagii baa qarjacadaas dhowr qof oo Christmas aadaya awgood ayaa loo marin habaabiyay ummad dhan waxa weeye loo marin habaabiyay oo dhibteedu ay maanta taagan tahay waxa weeye waxaana laga rabaa inaanu sidaan uga faa'iideysan karna saaxiibadeen ay noo cadaato waxyaabaha dhibaatada ah oo mushkiladda ah oo dawladnimadeennii iyo dadnimadeennii halista ku ah. annagu timetable-koodana kuma shaqayn karno arrimahooda oo waxa weeye waa inuu ajanduhu uu noqdaa mid Soomaaliyeed, waa inuu noqdaa kan oo nalagu caawinayo. laakiinse dastuur oo Boston lagu soo sameeyay annagu ma karayno. intaan ka badan ummadda indhaha ciid loogama shubi karo. shacabka Soomaaliyeed waxa weeye waa inaan dadkii matalayay baan nahay, rabitaankooda waa inaan anagu soo dhuuxnaa.
markii ugu horeysay intii uu يعني برلمان كينو جري أنا أنتي برلمان سووا جرت الله عرضه واتجناي أو حتى حين يردد وحلقة ويديه ميزانية دوده وهذا قيدينه تي حد يهيد تي حد وجود بيس أي أهيد اللي يري ميزانية دينه أنت صوا الله بقول أنت صوا كل ساسا أنا ونرد هاي إنكم حيدا لا تحب حتى يعني وحول الله سوق هذا الرأي يقول لكن إلا ويديه وحوي سيستم كا ديمقراطية ونصيدها معها شعب كصوماليتنا سيداس ما يستاهلان حتى أن كأمسنا أنو وأنو وحوي أن كرسي يجا أن آير إلى عشانه وحوي ومدة الصوماليات ماشي يتاجن تهي إنه كسي هوس مرتموية قربة وقصوق عيسو وحن إذا كبا هن هاي إن أرمها سكف فكرتان مسكحضو كل جيم بين نجودة شرتان wixii aan qaban oo shacabka Soomaaliyeed aan qaban waa inaanu maya dhihi karnaa si aan noloba xumaan waa inaanu dhahnaa maya walaalo maya waa inaan dhahnaa oo xataa si khariban yaanaan u dhihin sidan aan rabnaa sidan gacan han lagu siiyo aan dhahno waxa weeye in yaro activism aan muujino shaqadii baan ku noqonaynaa yani baarlamaankan ku noqonaynaa dastuurkeena iyo xeeroosaadkeena wuxuu nafarayaa xildhibaanada iyo civil society waa inay saas u wada shaqeeyaan sababta oo ah labaduba qaab gaar ay shacabku matalaan ma wada shaqeynaa anaga iyo civil society ma wada shaqeyno iyaguna meel bay naga xantaan ma aqaan quraastayda midha u baahan yihiin ma garad annaguna waxaan dhahnaa NGO iyo civil society baasba عردي وريري لكن سواء على الرباع واسكوبها هنهاي شعب كاس إن لا ترى أو رأي جودة يربطان كودا لو حكومة أو وحلوي ديو عن إسكا كاشن إنهاس سيد الله سمين لها كفكرة وحوي إسكاش يقولون هل كان قبل اللوضة ضد بدن أو وحوي أجد ياشا للربع إن عاد وحكا قبطان قرب يدو كوجا أياجره oo Soomaali ah oo ajnabi ah idinkoo taa kaashanaya waxaan idinku dhiirigelinaynaa intan ka badan yaana shacabka Soomaaliyeed sidan lagu fiirsanin waxa weeye xildhibaanadii kale magaalada joogan waa soo salaami doonaan waxaan idin leeyahay mabruuq shaqada fiican aad hore u soo qabateen waxaana mabruuq idin leeyahay shaqada aad qaban doontaan hadda waxa ma qaban waxaad qaban doontaan la waxaad idin leeyahay mabruuq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.